bilaa taxriikin dhaqdhaqaajin la-aan ayuu kor yeeli yacni farta markaad ashhadu an laa ilaaha ila allahu markaad maraysid marka aad taagaysid ma dhaqdhaqaajinaysid oo fartii saan uma ruxaysid yani ruxiddaas waxaa weeye yacni ma aha mid laga soo guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisana ka mid ma ahay nabiga sala allahu calayh wasalam liannahu xadiis abu daawuud fii sunanihi ku sugnaa min xadiisi cabdillahi bni zubayr xadiiskii cabdillahi bni zubayr oo kitaabka sunan abi daawuud ku qoran xadiiskaas cabdullahi bni zubayr wuxuu nabiga salى اllahu عalيه wasalam markuu ka sheekeynayey habkuu nabigu u ataxiyaadayey iyo habka uu farta nabiga salى اllahu عalيه wasalam uu u kor yeelayey markuu habkaa ka sheekeynaya cabdullahi bni zubayr wuxuu yihi kaana laa yuxarikuhaa waa xadiis cabdillahi bni zubayr fii sunan abi daawuud kaana laa yuxarikuhaa wuxuu ahaan jiray nabigu salى اllahu عalيه wasalam inuusan farta dhaqdhaqaajin marka riwaayatu cabdillahi bni zubayr fii sunan abi daawuud waxaa ku sugnaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam inuusan fartiisa dhaqdhaqaajin jirin xadiis kale marka waxaa soo arooray oo isaguna dhahaya bimacnaa wakaana yuxarikuhaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam fartiisa wuu dhaqdhaqaajin jiray waa xadiis imaamu اlbayhaqi fii sunanihi uu ku wariyey imaamu اlbayhaqi labada xadiis wuu jamciyey oo labada xadiis wuxuu ku jamciyey hal macno halka macnuu isugu keenay wuxuu yidhi saxaabiga dhahaya nabiga salى اllahu عalيه wasalam fartiisa waa dhaqdhaqaajin jiray bimacnaa dhaqdhaqaajinta sidaa in loo kilkilayo loolama jeedee yuriidu rafcaha dhaqdhaqaajinta wuxuu la jeeday waa markuu nabigu farta saa usoo kor yeelay la ashhadu an laa ilaaha ila اllah markii leeyahy farta waa soo kor noqon dhaqdhaqaajinta markii nabigu soo kor yeelayey ayuu ula jeedaa waa imaamu اlbayhaqi fii sunanihi kitaabkan sunanka اlbayhaqi loo yaqaanay axaadiista nabiga salى اllahu عalيhi wasalam uu ku jamciyey qeybteeda fiqhiga ah uu bayhaqi ku jamciyey saasuu labada xadiis macnahooda meel isugu keenay labada xadiis saasuu meel isugu keenay imaam اlbayhaqi marka saxaabiga dhahaya nabiga calayh الsalaatu wasalaam farta uu dhaqdhaqaajin jiray dhaqdhaqaajinta ulama jeeduu yihi imaamu اlbayhaqi kilkilid farta la kilkilayo ulama jeedee yuriidu rafcahaa wuxuu ula jeeday markii nabigu farta uu soo kor yeelayey haddii markaas way dhaqdhaqaaqi farta jamcan bayna alxadiiseyn si labada xadiis macnahooda loo jamciyo wa rafcuhaa cinda qowlihi ila اllahu bilaa taxriik